wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan dhammaan dadweynaha halkan naga dhageysanaya oo runtii aan wadnay taariikhdii oo ay ahayd maalintii dhawada aan bilownay taariikhda oo runtii aan halkii kasii anbaqaadino. Taariikhdu sideedaba waa waxyaabaha runtii dadka ka bedela mowqifkoogii hore ama maskax ahaan kusoo kordhiya oo wax badan runtii ay ummaddu ay run ahaantii aqoon ahaan iyo maskax ahaanba ay wax uga kordhaan. Waxay maalintii noo joogtay Northumbria, boqortooyadii Northumbria, maadaama ay soo hadheen 3 boqortooyo oo boqortooyooyinkii yaryaraa dhammaantood ay qabsadeen. Mercia iyo Wessex ay qabsadeen. Markaa Northumbria oo iyaduna markaa hal boqortooyo noqotay. Markaa Alfred ayay noo joogtay. Alfred baa 685 ilaa 705 haystay. Kabacdi waxaa la wareegay oo ka dhaxlay Egfred isagoo haystay waqtiga 700 iyo wuxuu haystay. Alfred waxaa ka horeeyay Egfred oo haystay 670 ilaa 685. Alfred baa ayaa ku xigay oo qabsaday 685 ilaa 705. Waxaa ku sii xigay Osred isaguna qabsaday 705 ilaa 716. Kabacdina Osric oo qabsaday 716 ilaa 729. intaa ka bacdi boqortooyadii Northumbria loo jiray waxaa la wareegay oo qabsaday Viking-ka ayaa la wareegay. Haddaan ku noqdo labadii boqortooyo ugu awoodda badnaa aan ka bilaabo boqortooyadii la oran jiray Mercia, Eagle ninkii la oran jiray ugu horeeyay qabsaday 515 ilaa 535. waxaa la wareegay Keneb oo inankiisa kabacdi waxaa dhacay dagaalo sokeeya dhacay isla waqtigaa. Kabacdi muddo la dagaalamayay dabeetana inankiisa qabsaday inanku dhalay ku sii dhalay oo la oran jiray inanku dhalay ku awoogo ahaa Crotte la oran jiray ayaa qabsaday 593 gar oo 535 dagaalku bilaabmay sokeeye ilaa intaa dagaal ba socday sokeeye. Markaa 593 buu qabsaday Crotte inanu uu awow labaad ahaa Isal oo labaad ahaa 593 ilaa 606 buu haystay. inankiisa Carol la oran jiray qabsaday 606 ilaa 626. Bayba ayaa qabsaday isaguna qabsaday 606 ilaa 626. waxaa la wareegay dabeetana inankiisi Banda oo la oran jiray isaguna qabsaday 626 ilaa 635 haystay. Ewa oo inanku dhalay ahaa Banda oo isaguna qabsaday 635 ilaa 642. kabacdi dabeetana waxaa dhacay dagaala dhacay sokeeye haddana waa la inqilaabay. inqilaab iyo dagaala dhacay dabeetana inqilaab dhacay. markaa kabacdi waxaa meeshii qabsaday oo la wareegay Benda nin la oran jiray oo Benda la oran jiray 655 ilaa 600 iyo wuxuu haystay 56. intaa ka bacdi dabeetana Wolver ayaa inqilaabay isaga laftigiisa. wuxuu qabsaday dagaala dhacay dabeetana inqilaabay wuxuu qabsaday 658 ilaa 676 buu haystay. inankiisa ninkii Benda la oran jiray inqilaabay inankiisa haddana qabsaday Egfred la oran jiray 700 iyo wuxuu haystay 96.
kabacdi uu dhintay Enfield oo walaalkii ahaa baa la wareegay 700 wuxuu haystay 96 ilaa 821 dabeetana uu dhintay xaaskiisa oo kasoo jeeda boqortooyadii la oran jiray Wessex ayaa markaa qabsatay dabeetana boqortooyadii Mercia waxay hoos geysay Wessex marka Mercia intaanay hoos geyn dagaalada dhacay Enfield intaanu dhiman dagaalada dhacay dagaalkaas lagu dilay isaga dhacay Viking-ka ayaa soo weeraray dhulka qabsaday Mercia dabeetana dhul badan bay ka qabsadeen cabsay markaa inaan taasoo cabsootay oo ay awoodi kar weeday labadii boqortooy isku dartay dabeetana wixii waxa markaa madax wada noqday Wessex haddaan taariikhdooda ku yar noqdo Wessex ninkii ugu horeeyay wuxuu qabtay isaguna Wessex ninkii ugu horeeyay qaybta dambe ayaan halkaas aan ka bilaabi doonaa oo aan halkaa kasii wadi doonaa qaybta ku xigta marka wayno iyo qaybta dambe maca salaama La